كما تدين تدان. qisadeena ama sheekadeenu waxay ku saabsan tahay wiil dhalinyaro ah oo sida dhalinyarada kale ee qeyrkiis ah isticmaali jiray internetka ama social media. waxa uuna yaqaanay gabdho aad u badan, waana la sheekaysan jiray oo uu jacayl ayaa usoo wada bandhiga jiray isagoo ku wada ciyaaraya, qaarkoodna usoo bandhiga jiray guur kadibna uu uga carari jiray marka uu ku ciyaaro. dadka kalena wuxuu ugu sheekayn jiray inay gabdhahaas iyagu ay khaa'imi jireen. isagu haddaba waxa uu la dhashay gabdho kale, waxa uuna gabdhahaasi u ilaalin jiray si aad u adag inay isticmaalaan mobil ama ay dad kale la sheekaystaan, iska daayay xitaa inay daaqadda eegaan uma uusan ogolaan jirin. waxauna u ilaalin jiray si aad iyo aad u adag, xataa ficilada ay sameeyaan si aad u dhow ayaa uu la socon jiray. mid ka mid ah walaalihii ayaa waxay dhigan jirtay jaamacadda, waxauna soo gaarsiin jiray jaamacadda. maalintan waxa uu soo gaarsiiyey jaamacadda, markii uu ku hubsadayna gurigii ayaa uu kusoo noqday si uu usii wado gabdhihii uu u sheekayn jiray beenta iyo jacaylka iyo waxa aan jirin. isla maalinkaasi waxaa dhacday dhacdo aad u naxdin badan. waxaa dhacay gaadhigaasina waxaa ku wada jiray wiil iyo gabadh. wiilkii iyo gabadhiiba gaadhigaasi waa ay ku dhex dhinteen iyagoo aad u ahaanaysan kuna dhex jiray macsiyo, waayo gabadha waxay ahayd walaashii, ninka la socdayna waxaa mid sidiisa oo kale been badan. kadib waraaqaha gaadhiga dhacay agtiisa laga helay ayaa waxaa laga helay adareyska gabadha, waxaana loo soo sheegay wiilkii naxadin. waxa uu arkay gabadhii walaashii ahayd oo sidan aadka u dullinimada badan ku dhimatay. aad ayaa uuna u naxay una dhibsaday arrinka dhacay. aad ayaa una uga qoomameeyey ficiladii xumaa ee gabdhaha kula kici jiray, waayo kuwaasiba wiilal ayaa ila dhashin. allah ayaa una dembi dhaaf weydiistay. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. markii loo sheegay in walaashii gaadhiga ay la saarnayd nin kale, waxa uu soo xasuustay hadalladii iyo ficiladii uu ku samayn jiray gabdhaha kale ee iyaguba dhaleen qoysas sidaas oo kalena ay la dhasheen wiilal sidiisa oo kale ugu damqanaya gabdhaha walaalaha ah ay la dhasheen. waa uuna ilmeeyey isagoo ka qoomameynaya ficiladii xumxumaa ee uu kala dhaqaaqi jiray gabdhaha kale ee qoysaska kale dhaleen. aad ayaa unaga qoomameeyey waxyaabaha uu samayn jiray iyo beenaha uu sheegi jiray. waxa uuna soo xasustay xadiiskii rasuulka sallallahu calayhi wasallam: biru laa yablaa wal-ithmu laa yansa waddayaanu laa yamuut fakun kamaa shi'ta kamaa tadiinu tudaan.